khubaro dhinaca cilmiga badda ah ayaa shir ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Khubaradan waxaa isu keenay macadka siyaasadda ee Afrika, waxaana xoogga lagu saaray sida Kenya ay u joojin karto talaabooyinka adag ee ay ka qaadayso Soomaaliya. Waxa ay dowladda Kenya ugu baaqeen inay xalka ka eegto dhinaca diblomaasiyadda, isla markaana ka digtoonaato talaabooyin kale oo colaadin hor leh abuuri kara. waxa ay sheegeen in haddii Kenya ay ku fashilanto dacwadda badda ee Sebtembar la go'aaminayo in labada dal ay sameyn karaan wada hadal kale oo labada dal u gaar ah. Waxa ay tusaale u soo qaateen xukunka ICJ ee ayayna ka dhanka ahaa ee kala dhaxeeyay dalalka Philippines kaas oo biyihii lagu murunsanaa siiyay dalka Philippines, laakiin ay labada dal dib u fureen wada hadal sidaas hadda heshiis ku yihiin. Khubarada ku shiray Nairobi ayaa sheegay in haddii ICJ biyahaasi u xukunto Soomaaliya ay Kenya noqonayso dal aan bad lahayn, isla markaana Kenya ay ku qasbanaanayso in ay fasax weydiisato dalalka Tanzania iyo Soomaaliya si ay maraakiibteeda ugu xirtaan Mombasa. Qabiir Kenyaan ah oo lagu magacaabo Peter Kingwanja ayaa sheegay in haddii ICJ biyahaasi u xukunto Soomaaliya ay saameyn taban ku yeeshan doonto dalalka kale ah Uganda, Rwanda, South Sudan, Burundi iyo DRC oo dhammaantood ku tiirsan dekedda Mombasa.